kullu caam wa antum bilkhayr ciid wanaagsan Soomaaliya. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa haatan waxa ay u taagan yihiin tukashada salaada Ciidul Adxaa oo ah ciidda ugu weyn muslimiinta. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Jowhar oo ah caasimada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta si weyn loogu ciiday maalinta koowaad ee Ciidul Adxaa. Salaada ciida kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay duqa degmada Jowhar Saalax Muudi Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xando iyagoona hambaliyada munaasabada Ciidul Adxaa la wadaagay muslimiinta meel walba ay joogaan. maanta waa maalin aad u qiimo badan, waa maalin farxadeed, waa Ciidul Adxaa. sidaba ummadda islaamka waxay leedahay laba ciidood oo aad ugu qiimo badan agtoodana ku weyn. maanta waxaynu dukanay salaadii ciida Adxaa oo ah ciid weyneed, ciid yare iyo ciid weyn ayaa Soomaalidu tiraahdaa. ciid midda Ramadaanka laga soo baxo ee fitriga taas waxa la yiraahdaa ciid yare, middan waxa la yiraahdaa Ciidul Adxaa oo ah ciid weyn sida Soomaalidu aad ugu taqaano. sidaa daraadeed marka anaga waxaan leenahay hambalyo ummadda islaamka oo dhan guud ahaan hambalyo, gaar ahaan Hirshabelle waxaan leenahay guul. maanta waa maalin qiimo weyn oo ummadda islaamka meel walba ay dunida ka joogto, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ciid mubaarak. ciidan waa taqaan waa ciidii weyneed, waa Ciidul Adxaa. waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, waxaan u rajeynayaa bash iyo baraare inay ciideeda ku gaaraan. waxaan kaloo u rajeynayaa inay doorashooyinkan iyo isbedeladan la rajeynayaa inay ummadda Soomaaliyeed noqoto tii ay ku hana qaadi lahayd oo meel fiican ku tagi lahayd. gaar ahaan ummadda Hirshabelle waxaan rajeynayaa inuu masiibooyinka, fatahaadaha iyo dhibaatooyinka yaala inuu ka dulqaado Allah ayaan ka rajeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo. guud ahaan ummadda waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. dhanka kale, wasiirka wasaaradda diinta iyo arrimaha awqaafta Hirshabelle xildhibaan Abuukar Cali Maqane, wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cumar Ceemoy iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle xildhibaan Bariise ayaa dhankooda ummadda muslimiinta ah waxa ay la qaybsadeen hambaliyada munaasabada Ciidul Adxaa. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kullu caam wa antum bikhayr. waxaan meeshan hambaliyo iyo farxad iyo bogaadinba uga dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, ummadda islaamka ah, ummadda Soomaaliyeed, ummadda reer Hirshabelle. waxaan leeyahay Ilaahay ciidan ciideeda sama Allah nagu gaarsiiyo. Ilaahay acmaasha xajka iyo soonkii iyo wixii la soo gutay fadligooda Ilaahay in uu dambi dhaaf nagu siiyo. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo kullu muslimiintaba waxaan leeyahay ciid mubaarak. hambalyo ciidan Ciidul Adxaa waa ciid weyneed. waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciid mubaarak. waxaan leeyahay ciidan ciideed Allah nagu wada gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo, cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban. khaasatan ummadda reer Hirshabelle waxaan leeyahay ku ciidan Ciidul Adxaa Ciidul Carafa waa ciid weyneed. waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan idinkana ku ciida, nugul ciida aanu ku wada ciidno bashbash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo. waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka baryeynaa in ummadana qulubtooda isu soo dumo. ciid wanaagsan. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay dacalada dunida ka joogaan. waxaan ugu hambalyeynayaa munaasabada ciidan qiimaha badan ee sharafta badan oo ay ku muujinayaan shicaarkii diinta islaamka ay ku muujinayaan. hambalyo ayaan leeyahay. waxaan Ilaahay uga baryayaa guud ahaan dadka muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan oo ku dhiban in Ilaahay dhibka ka qaado, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed in Ilaahay dhibaatada iyo khilaafaadka iyo colaadda iyo fatahaadaha iyo inuu Ilaahay ka rafciyo, inuu Ilaahay colaadda ugu bedelo nabad ugu bedelo, horumar iyo barwaaqo ugu bedelo. intaas ayaan Ilaahay ka baryaa. si kastaba dunida muslimiinta ayaa maanta oo Talaado ah waxaa laga ciiday maalinta koowaad ee Ciidul Adxaa oo ah ciidda ugu weyn muslimiinta. Ali Taliya Cabdi, Hirshabelle TV, Jowhar.